بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan ka hadlayaa walaalayaal arrimaha maaragtay geeska Afrika iyo geeska Afrika badda cas gacanka cadmeed iyo Indian Oceanka wadanada ku hareersan wadankani waa Eritrea wadankan waa Ethiopia wadankan waa Djibouti wadankan waa Soomaaliya wadankan waa Yemanta Soomaaliyadii waqooyi Soomaaliyada maaragtay koonfureed iyo dhulka imika maanta Somaliland dadku u yaqaaniin dadka qaarkood ayaan ka faalooni doonaa walaalayaal mar dhoweyd sidaan horto waxaad arkaysaan waa maraakiibtii adduunka oo dhan linka cas haddii aad aragtaan calaamadda orange-ka waxa weeyin waa maraakiibta xamuulka waaweyn sida ee maaragtay petroleumka waaweyn weeyaan maaragtay gaaska iyo oilka qaada ee ka qaada maaragtay khaliijka ilaa Mareykanka iyo dhulal dheer geeya haddaad aragtaan noocan huruudda ah amba yelowga waxa weeyaan kuwa konteneerada qaada maraakiibta konteneerada qaada haddaad aragtaan bluegaasi waxa weeyaan maaragtay maraakiibta kalluumaysiga haddii aad aragtaan maaragtay nooca maaragtay casaanka aada guduudka waa nooca maaragtay maraakiibta way ku yar yihiin adduunka waxaa la yiraahdaa sixth generation baa la yiraahdaa waa maraakiibta waaweyn ee maaragtay qaada maaragtay ilaa 25,000 oo container badi waxay joogsadaan boorarka waaweyn sida maaragtay Djibouti Singapore iyo South Africa unbay ka joogsadaan maaragtay intan geeska Afrika marka maraakiib yar oo kala qaada markii markabkaasi weyn ee 25,000 ee container sida wuxuu joogsanayaa Djibouti buu joogsanayaa maraakiib yar baa ka qaadaysa waxay geynayaan Yemen bay geynayaan Soomaaliya geynayaan Eritrea geynayaan Jidda bay geynayaan Oman bay geynayaan Kenya Tanzania marka maraakiibtaasi way ku yar yihiin adduunka waxayna joogsadaan boorarka waaweyn ee adduunka maaragtay capacity weyn maaragtay ay ku joogsan karayaan markaasi maraakiibtaasi dhererkoodu waxa weeyaan maaragtay 1 hectare waxa weeyaan 1 kilometer iyo badh bay yihiin way waaweyn yihiin markaasi boorarka badankooda ma joogsadaan qaaradda Afrika 2 boor bay ka joogsadaan boorka Djibouti ku yaala iyo boor kale oo South Africa ku yaala iyo ku kale oo maaragtay ku yaala Morocco kuwan kale yar ee maaragtay konteneerada qaada ee yelowga maaragtay ee aad u fara badan waxa weeyaan waa kuwa konteneerada qaada ilaa 3,000 ilaa 5,000 qaada konteneerada kuwa kale ka sii yar baa jira oo qaada 1,500 ilaa 2,000 oo kuwan bluega aad arkaysaan ee xeebta Soomaaliya sida u hareersan ee ugu badan waxa weeyaan kalluumaysatadii Soomaaliya waa kalluunkii Soomaaliya la xadaya waxa weeyaan ka kalluumaysanaya Kenya Tanzania Seychelles Sri Lanka India China iyo ka kalluumaysanaya xeebtii Soomaaliya sawirkan satellite-ka ayaa maaragtay soo sawiray oo waxa markab geeska Afrika waqtiga imika aan hadlayo jooga ayuu ku soo sawirayaa marka eeg maraakiibta bluega aad arkaysaan ee Muqdisho u dhow ee Garacad u dhow ee Hobyo u dhow ee Puntland u dhow waxa soo dhan ee dhulka badaha Soomaaliya jooga oo dhan maraakiibtaasi si xaq darra ay uga kalluumaysanayaan badaha Soomaaliya balse Soomaaliya ilaa 2,000 oo kilometer da soo baxday dhulka yada iskale markaas maraakiibtan kalluumaysanaysa si xaq darra bay u kalluumaysanayaan oo maaragtay waxay ka kala yimaadeen Kenya Tanzania Seychelles iyo Sri Lanka India iyo Shiinaha Bangladesh markaasi waa Bob iska cad oo 30 sanadood oo maaragtay jira imika haddaad u fiirsatid dhinacan maaragtay badda cas haddaad aragtid markab kaliya jooga kaasina wuxuu ka kalluumaysanayaa badda u dhaxaysa maaragtay Sacuudiga
iyo maaragtay Eritrea inta u dhaxaysa ayuu ka kalluumaysanayaa. Laga yaabaa inuu Sacuudigu leeyahay. Mid kale baa jiro xaggan xabad kala taalo oo dhinacan oo badda u dhaxaysa maaragtay Djibouti iyo Yamanta. Mid maaragtay ka kalluumaysanaya jira. Waxaa dhici karta inay Yamantu leedahay. Mid kale xaggan jooga oo maaragtay isagu aad ugu dhow Yamanta iyo Oman oo ka kalluumaysanaya. Markaasi inay Yamantu leedahay ama inay Oman leedahay dhici karta. Laakiin waxaan badan maraakiibtan kale badan sida xaqdarrada uga kalluumaysanaya waxay ku dhow yihiin ilaa ma 1000 markab bay ku dhow yihiin oo badihii kalluunkii Soomaaliya sida loo xadayo. Maraakiibtii kale ganacsigu inay ku yar yihiin. Kani container buu sidaa waa maraakiibta ku socota Kenya ama Kenya ka timid koonfur ku socota weeyaan. Xaggani waa boorkii Boosaaso. 2 markab oo kaliyaata ayaa jooga boorka Boosaaso waqtiga imika aynu la hadlayo oo maaragtay labadaasi waxay sidaan waa maraakiibta containerada yaryar qaada meelaha 500 ilaa 1000 container qaada oo ku soo xiranaya boorka Boosaaso. Xaggan Berbera weeyaan waqtigan imika Berbera markab ma joogo waqtigan aan imika looga hadlay, laakiin labadan markab ayaa ka baxay shalay toole oo ka dhoofay oo maaragtay waa kuwa maraakiibta yaryar maaragtay u kala goosha maaragtay containerada ilaa 1000 container ilaa 500 container qaada. Xagga Djibouti waa in arkay waa meel maaragtay intersection weeyaan. Waa intersectionka maraakiibtaasi waxaa marta oo badda Djibouti iyo badda Yamanta iyo Djibouti inta u dhaxaysa. Amba Djibouti maraakiibta adduunka oo dhan Djibouti bay dhigaan Afrika alaaba Afrika ku socdo oo dhan. Djibouti bay containerada u dhigaan oo containerada marka Djibouti la dhigo iyo haddana maraakiib yaryar si qaada ay geysaa waddanada dariska Eritrea, Soomaaliya, Yamanta, Oman, Jeddah, Mombasa ilaa Tanzania ay geeyaan. Markaasi يعني استراتيجية ay leedahay badda casi waa ninka arkaya waxa soo arkaysaan waa maraakiib weeyaan qaarkood sanka isku saaran yihiin oo isku dhow yihiin. Markaasi maraakiibta qaarkood wadannada ay maaragtay qalab wanaagsan lahayn maba joogsadaan because markabku markuu Djibouti joogsado wuxuu oranayaa waxaan haystaa 40 minute inaan lagaga dhaadhiciyo maaragtay intaasoo container. Qaarkood waxay ku oranayaan saacad gudaheegan Djibouti joogaynaa waa inaan laga dhaadhiciyo 1000 container saacada gudaheega. Marka qalabkeygii haddaanad haysan ma joogsanayaan. Waata keentay inay maraakiibta waaweyn ee Djibouti oo 6 boor oo waaweyn ku leh inay Djibouti joogsadaan. Markaasi tani kale maaragtay Berbera xaggan waa Berbera waqtigan imika maraakiib ma joogto waxaana ka socda dhismo oo maaragtay Dubai baa dhisaysa. Xaggan kalena waa Boosaaso 2 markab baa ku soo socota waqtigan xaadirkan hadlay. Marka walaalayaal mar dhexdaasi Djibouti iyo Dubai baa maaragtay is afdhaafay oo maaragtay Djibouti baa ka eriday maaragtay DP World maaragtay DP World maaragtay boorka waa shirkad maaragtay caan oo maaragtay ku soo caan baxday Djibouti. Markii hore DP World lama oran jirin intii Djibouti iman waxa la oran jiray Jamal Ali baa la oran jiray. Markii Djibouti yimaadeen bay World ku dareen amba DP World ay yiraahdeen. Markaasi waxa dhacday haddaba dadka qaarkood waxay u haystaan ka tagitaanka ay ka tagtay DP World Djibouti inay maaragtay hoos u dhacayso wax soo saar maaragtay ganacsigii badda ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti inay hoos u dhacayso dadka qaarkood u haysteen. Hoos u may dhicin way sii dallacday because Djibouti waxay ku taalaa meel intersection oo maaragtay imika dukaankaagu hadduu ku yaalo meel suuq weyn oo intaasoo 1000 oo qof ay soo marayso dukaan kalena hadduu ku yaalo meel yar oo maaragtay luuq yar oo maaragtay saacadiiba qof soo marayso isku mid maaha. Markaasi waxa weeyaan waxaa soo maraakiiba iyaa soo maray Djibouti
qaarkood maaragtay refueling bay ka qaataan, qaarkood waxay ka qaataan markabka Jabuuti markuu yimi ku soo socdo uu ka soo baxo Masar, uu ka soo baxo gaas buu ka qaadanayaa, cuntuu ka qaadanayaa, xawaash buu ka qaadanayaa, shaqaalaha laisku kala bedelayaa, alaab baa la dhigayaa, alaabaha ku socda boorarka yaryar ee geeska Afrika oo dhan baa la dhigayaa. markaasi waa meel istaraatiiji weeyaan. markaasi qoladan maaragtay DP World, haddaba DP World waxay Jabuuti uga badisay waxa weeyaan maraakiibtan adduunka wada socoto oo dhan boqolkiiba 80 Shiinaha iskale, boqolkiiba 80 Shiinaha iskale. haddii carabtu lahaan lahayd amba Abu Dhabi maraakiibtan ay lahaan lahayd, marka Jabuuti u dhamaan lahayd. markaasi boorkan ay dhisayso DP World ay berber ka dhisayso saameyn muxuu Jabuuti u yeelanayo? waxba uma yeelanayo, because baahida Ethiopia taallaa badan. marka boor haddii xaggan laga dhiso ilaa 20 boor oo kale haddii xaggan laga dhiso, wax Jabuuti ay saameyn ku yeelanayso ma jirto. baahida Ethiopia aad u fara badan. markaasi midda labaad, DP World Jabuuti cunaqabatayn kuma samayn karayso maraakiibta Shiinaha iskale. maaragtay 20 ka soo haran waxa iskale Greek baa iskale oo ku kale maaragtay u badan, laakiin waxaanan ahayn maraakiibtan kalluumaysiga ee xadgudubka ku haysta dalka Soomaaliya. waxaad arkaysaan oo dhan maraakiibtaad arkaysaan oo dhan ee maaragtay buluuga waxa weeyeen maraakiibta sharci darrada ku kalluumaysanaysa ka yimid Tanzania, Kenya, Seychelles, maaragtay Sri Lanka iyo India, China. marka walaalayaal intaasaan ku soo koobayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.